wuxuu afduubtay gabadh yar oo 9 jir ah isagoona ku qaatay gaadhigiisa kadibna nin ayaa arkay dhacada oo la socodsiiyay biliiska balse ma aysan jirin hab uu ku ogeysiiyo dadka deegaanka la degan in la afduubtay gabadh yar oo jaarkiisa ah si ay ula raadiyaan waxayna biliiskii sameeyeen inay dadka guryaha ku garaacaan oo ay ogeysiiyaan dhacada si ay ula shaqeeyaan sidoo kalena waxay adeegsanayeen raadiyoga gaadiidka si dadweynuhu ay wixii xogay kiiskan ku aadan ula soo socodsiiyaan laakiin maalmo ayaa tagay wax yar oo haba yaraatay tixraacana ma aysan helin balse muddo 4 maalmood kadib markii la waayay waxa gabadh yareed laga helay meedkeedii webi ku yaalay isla magaalada waxayna waalidiinteedu aaminsanaayeen haddii bilowgii hore qofkii u horeeyay arkay uu dadka wada ogeysiin lahaa waxa si fudud loo heli lahaa gaadhigii afduubtay gabadha yar laakiin ma aysan dhicin waxayna damceen si arrintan oo kale aysan mar dambe u dhicin inay biliiska kala shaqeeyaan inay la sameeyaan oo la unkaan system weyn oo ay ugu magac dareen magaca gabadhooda ee Amber kaasoo ilaa hadda laga adeegsado dalka Mareykanka oo marka ilmo yar la waayaba xogtiisa waxa daqiiqad gudahood lagu galiyay habkan kaasoona fariin degdeg ah hal mar u wada diraya dhammaan dadweynaha dalkaas wixii smartphone sita xagaana waxa ka soo fududaanaysa in qofkii ilmaha afduubtay la helo isagoo meel fog la aadin maadaama xogtiisii waqtigii loo baahnaa ee ugu macquulsanaa la faafiyay ee la iswada gaarsiiyay